يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتقف بنحو دار su-aashan waxay nooga timid ragga odayaasha masaajid ku tukada mid ka mid ah waxaanay nuxurkeedu uu yahay nin haweenadiisa ay ku tidhi ifur oo warqad ugu qoray waad furan tahay intay ku tidhi ifur buu warqadii wuxuu ku qoray waad furan tahay ninka xaasku ma ka furanta ikhwaani marka koobaad waxaan walaalaha ka codsanayaa arrimaha la xidhiidha furniinka marka su-aal laynaga weydiiyo si guud ahaan baan uga jawaabayna laakiin xaalad taagan hadday tahay aan lagu dabaqin xaalad taagan hadday tahay amba ay adiga ku haysato dad baa laga yahay marka qadaayaadka furniinka la soo gaadho in xaalada isaga ku taagneyd iyo jawaabta ay iswaafaqaan dabeedna uu sidaa ku qaato isku qanciyo laakiin xaqiiqada laga yaabo haddii qofka ay haysato amba cidda ay su-aashu ku saabsan tahay haddii si xog hoos ahaaneed loo waraysto jawaabta hadda aan bixinayna mid aan ahayn aanu bixinaa laga yaabo qadiyaddaas waa qadiyad la tajribeeyo weeye maxaa yeelay qadiyadda faamilada marka lagu weydiinayo arrintaa ka waran iyo markaad hor fadhiisatay dadka xog waraysato inta badan labada suura waa iskhilaafsan yihiin walidaalika su-aasha waan ka jawaabi doonaa jawaabta aan bixinayaana waa jawaab guud ahaaneed laakiin cidday xaaladdu waxa weeye haysatay amba cid ay xaaladdu haysata hadday jirto waxaan u baahanay cidda inaan aragno hor fadhiisanno oo su-aalo badan aan weydiino oo fatwada guud ahaaneed la bixinaayo inaan lagu dabaqin aad baan uga cudur daaranaya marka koobaad ikhwaani marka dalaaqa amba furniinka laga warramayo dalaaqa waxa culimadu wuxuu ku dhacaa laba arrimood arrinka koobaad waxa weeye inuu qofku isticmaalo erey furniinka ku cad culimadu iyagaa yaqaana ereygaas waxa uu yahay amba dalaaq ha la yidhaahdo amba saraax ha la yidhaahdo amba firaaq ha la yidhaahdo amba ereyo kale oo waxa weeye la macnaa ha la isticmaalo ereyada ku cad furniinka qofka hadduu isticmaalo ilaahay idankii niyadiba yaanay jirin haweenedu waa ku furmaysa hadduu ninku yidhaahdo haweeneda waad iga furan tahay amba kaftan ha ka ahaato ama cabsigelin ha ka ahaato ama waxa weeye ujeeddo kale ha ka ahaato hadduuba ula kac ereyga afkiisa uga yidhi haweenedu waa ku furmaysa idan shayga koobaad haweenka ay ku furmaan waxa weeye waa erey furniin ku cad ama niyadi ha weheliso ama niyadi yaani wehelin taa waxa weeye haweenku waa ku furmaan waxaa kaloo haweenku ay ku furmaan erey aan furniin ahayn laakiin ay niyadi weheliso oo ninku intuu ku dhawaaqay markii la weydiiyey maxaad uga jeeday yidhi anigu furniin baan uga jeeday hadduu waxa weye haweeneyda ku dhado orodar reerkiinni ah ama gurigayga ii dhaaf oo la dha maxaad uga jeeday udha furniin baan uga jeeday uu ula jeeday furniin markaana haweenedu waa ku furmaysa mar labaad haddaan ku celiyo waxay haweenku ku furmaan erey furniinka ku cad niyadiba yaani wehelin ama erey aan furniin ku caddayn laakiin qofka isticmaalayay uu niyad u isticmaalay furniinna uga jeeday halka markaynu marayno waxaan isweydiinaynaa su-aasha ah labadaa waxaan ahayn haweenku ma ku furmaa culimmadu waxay sheegeen laba arrimood labada arrimood waxay tahay waxaan waa ishaarada al-ishaaratu min al-akhrasi wa ghayri al-qaadiri cala al-kalaam waxaan waa ishaarada uu bixiyo qof aan awoodahayn inuu hadlo qof aan hadalba ka soo baxahayn baa lagu yiri haweeneydaadi ma furtay dabadna madaxuu gundhiyey haweeneydu waa ku furmaysa haddii markaa tabada ishaaro bay dhahdeen ishaaro cidda ay ka soo fulaysaana ay tahay cidda ay ka soo fulaysa ay tahay cidaan hadal awoodin iyana haweenku waa ku furmaan waxa labaad ay ku furmaan aan hadal ahayn waxa weeye waa qoraal ay niyadi weheliso qoraal ay niyadi weheliso macnaha ninka wuxuu qoray haweeneydaydi way furantahay markuu qoraayena wuxuu uga jeeday furniin inay noqoto xaaladana haweenku waa ku furmaya oo maxaa la uga jeedaa qoraal ay niyadi weheliso hadduu qoro bay leeyihiin ninku haweeneydaydi way furantahay oo la dhada xaaski waad furtay udha qalinkaan tijaabinaya inuu wax qoraayo ma dhici kartaa qalinkaan tijaabinaya haweenedu ka furmi mayso waa sida culimadu tilmaameen waa laga yaabaa inaad tiraahda sidee ku dhacdo laakiin waa dhici karta marka waxa weeye siduu doonaba isagu sababta ha noqoto amba qalinka ha tijaabinayo ama waxa faygarayo dadka qaar baa khad iyo jeer wax qora
dadka qaar baxda wax iska qora marka qaarkood anu waxaan garanayaa in aan saaxiib ahayn weligii ma arag isagoo aan wax qorahayn yani waa shay mucjiza weey inta uu kula hadlaayo ama muxaadaro jeedinaayo ama wax way qof la sheekaysa waa baab kale weey laakiin hadduu fadhiisto warqad iyo qalin buu haystaa xayaatadeedana waxa qofka ugu farta fiicnaan arkay sababtoo waa in afar lan wax qorayo weey marka wixii maskaxdiisa ku soo dhacay waa qoraya waan hubaa ninkaas dhowr jeer kelmadda dalaaqa inuu qoray maxaa yeelay markasta wax buu qoraya idan waa dhici karta baciid maaha soo maaha marka haddii ba ninku uu qoro kelmaddii furniinka isla markaana uu ka murmo uu dhahdo ogama jeedin furniin haweenadu ka furmi mayso idan haddaan ku celiyo dalaaqu wuxuu ku dhacaa ereygaa sariixa ereygaa ku cad dalaaqa iyo erey aan dalaaqa ku caddayn oo ay niyadi weheliso iyo qof aan awoodin inuu hadlo oo ishaaro bixiyey iyo qof qoraal sameeyey qoraalkana inuu wax ku furo uga niyooday intaa wixii aan ahayn haweenku kuma furmaan intii ikhwaani waxa weeye hadda aan ka jawaabo wixii aan ahayn cidii ay soo waajahdo culimana ay u fatwootay waxa dhici karta qof intuu dalaaq qoray culimada inay ku yiraahdaan haweenadu way ka furantay culimada tiri wax way ka furantay waxay cuskanayaan baa jirta waxay cuskanayaan oo waaqica ah amba erey la socday ah amba niyad uu isticmaalay oo ka noqday amba waxyaabaad la halmaala bay cuskanayaan laakiin culimada islaamku waxay aaminsan yihiin qoraal kaliyata oo niyadi aanay wehelin waxba kuma furmaan intaas baan kaga baxayaa mar labaadna waxaan ku celinay case-kaas hadduu taagan yahay gaar ahaan qofka su-aasha ay weydiinayay wuxuu ii sheegay inaanay meesheena ka jirin waa rajaynaya meesha ay arrintaasi ka taagan tahay inay culimo joogto culimada ha looga dambeeyo su-aal ahaan iyo min baabil faa'ida ayuun baan u sheegayaa ma aha macnaheedu inaan case-kaa ka jawaab bixinayo arrintaa dhacday ee taagan ma aha inaan jawaab ka bixinayo arrintaa taagan waxay u taallaa culimada goobtaa joogta iyo sida ula tacaalayaan waxay u arkaan ansax inuu yahay baana ansax noqonaya ilaahay idankiisa